رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله ولا ليال khudbadeena waxay ku saabsan tahay cibaadada aynu bisha Ramadaan gudanayna aynu la imanayno iyo cibaadadaasi sida qurux iyo qiimo ku yeelan lahayd kuna midho dhali lahayd iyo inaynu fiirsanayno dhugano aynu dhabagallo cibaadadeenu wax raada ma samaysi ama calaamado ama isbedel ma ku samaysin nolosheena si aynu garan karno ama ilaahay uga barino in leeno aqbalay subhanahu wa ta'ala. waayo cibaadada marka la aqbalo calaamad bay leedahay, calaamadihii sharciga ay noo sheegay. marka waa muhiim inaynu calaamadaha eegno. marka horeysa bishani waa bishii cibaadada, cibaadooyin badan oo isa saaran oo isku xigxiga ayaynu u taaganahay. waa soomkii, waa quraankii, waa qiyaamkii, waa sadaqadii, waa dacwadii, waa cilmigii, cibaadooyin kala duwan baynu u taaganahay. waa bil dadka muslimiintihi ciddu ilaahay waafajiyo ay u xidhan yihiin oo u xidhan yihiin cibaado. marka cibaadada inaynu cilmigeeda yeelano si ay noogu midho dhasho waa waxaynu isugu baraarujinayno. cibaadadu laa yustaqnaa canha laa makaan walaa zamaan. marna cibaadada lagama maarmo, lagama weynaado, lagama kaaftoomo. ilaahay baa wuxuu wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. ilaa yaqiintu ay ku imanayso ilaahay caab. nabiga waa ilaahay ku bilaabay laakiin cid walba uu la hadlaya. watadallu ilaahay oo la isu gaabinayo oo la isu dhuldhigayo oo addoomo amar qaadanaya inaynu nahay baynu ilaahay u muujisanayna. waa ismun jaamic, waa magac koobaya marka cibaado la yidhaah wuxuu ilaahay ku amroo dhan ood la timaado iyo wuxuu kuu diidood ka tagto. cibaadadu noocyay leedahay. noocyadaa waxaynu u sheegaynaa waa in ilaahay loo daayaa keligii cibaadada. markaynu ilaa intaasoo nooc waa cibaado, cid lalama wadaajin kara ilaahay bay u taagantay. waxaa ka mid a ducada, adducaa. sidaa daraaddeed markuu ilaahay soomka ka warramay aayadihii soomka wuxuu ku dhex daray aayad ducada ka warramaysa. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبشارة إلى هاي وصافر يا النبي عليه الصلاة والسلام أو مدى الله بشارين أيو مركا يضامه بريان إنه إلى هاي ودوي هاي أو مقليو مركا أذابت اللي قدونا ينوال فري وأين إلى هاي كامر قاتان وأين إلى هاي بريان ويكون هذا نقاط. waxaa ka mid ah cabsida in ilaahay laga cabsado subxaanahu wa tacaala. wakhaafuuni in kuntum mu'miniin. inaad cabsi dhaba la timaado, cabsidii ikhtiyaariga ahayd aan tii dabiiciga ahayn. ila cabsida mid waa mid dabiici ah oo qofka iskaga beeran iyo noolahaba. hadduu halkan cadow kaaga soo cararo waad cararaysa waa cabsi caadi ah. laakiin cabsida ikhtiyaariga ee qofku naftiisa uu ka baadi doonayo ee uu ku rabaynayo taa ilaahay unbaa laga cabsada subxaanahu wa tacaala. sidaasuu inagu amro waxa uu wakhaafuuni in kuntum mu'miniin. haddii iimaanku uu dhab idinka yahay cabsidan xaqu leeyahay ga cabsida buu lahayd ee cid kale ha ka cabsanina. waxaa ka mid ah cibaadada arrajaa. sidaa ilaahay baa inuga cabsanayno cadhadiisa iyo cadaabkiisa ayaynu u rajaynaynaa raalli noqoshihiisa iyo naxariistiisana mar walbana aynu baryaynaa. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا يحول الملائكة تدك قاركود عابدين يغاب أضومه إلهي بريا وكعب سنة عذاب كيسن حريستي سنة إلهي رجيني سبحانه وتعالى. وحكم ذا عبادة الاستعانة
inaynu ilaahay gargaar weydiisanno goor walba wuxuu isu kaa garab taagi karaa si aan cid kale isu kaa garab taagin wuxuu kuu geli karaa meel aan cid kale kuu gelaynin ma ka maarmayno marnaba ilaahay gargaarkiisa sidaa daraaddeed baa salaad walaynu tukanaynaba faatixada waxaynu akhriyaynaa innagoo odhanayna iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wa iyaaka nastaciin adigaanu gargaarku weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala garab iyo gaashaanka u weyn waxaa laga helaa ilaahay cibaadada waxaa ka mid ah alistiqaafa waa iyaduna qayladhaan inaad marka wax kugu dhacaan inaad ilaahay u qayshato subxaanahu wa tacaala id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii buu ilaahay la hadla wuxu uhi bal waxaad taariikhda dib u xusuusataa markii cadowgu idinku fadhiistay dagaaladii aadkaa ku jirteen ee ilaahay gargaar weydiisateena ilaahayna idiin soo gurmadu malaa'ig kuna oo iska soo dabadegaysa idiin soo diray markaa markay wax kugu dhacaan ilaahay u qaysho subxaanahu wa tacaala qof dhintay iyo qof nool iyo malag iyo nebi cid kale toona qayladaasi ma istaahila ilaahay baa istaahila subxaanahu wa tacaala oo xaqu leh cibaadada waxaa ka mid a salaada ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar cibaadada waxaa ka mid a soonkanaynu taaganna yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam cibaadada waxaa ka mid a sakada aqiimu salaata wa aatu zakaa cibaadada waxaa ka mid a xajka walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wa arkaanu lislaamkii intan oo dhamiba marka arkaanu islaamkii unbay kuwaa horena la mid yihiin saa daraaddeed waa in xaqa ilaahay la siiyaa si markaa aqbal uu noqdo adiguna aad u nabad gasho cibaadadu waxay leedahay darajooyin iyo qaybo in cilmigeeda la yeeshaana ay waajibta qaybi waa faral qaybina waa sunni waxyaabaha faralka ah iyo sunnuhuna waa inaanay iska kaa dhex gelin miisaankaa kaa lumaya haddii kale haddaad faralkii sunne moodo sunnihiina faral moodo waad fudaydsan kartaa marka mid walba halkeeda aad ku ogaanaysa sida maalkaagaba raasamaalka iyo faa'iidadaad u kala taqaano xadiid alqudsi ilaahayna wuxuu yihi waxaan addoonkayga waxaan ugu jeclay waxa uu igu soo dhowaado shayga faradka ah faradka sunnaha mar kastuu ilaahay addoonku ugu soo dhowaado badiyana ilaahay buu sii dhowaadaa jeero rabbi uu ilaaliyo subxaana wa tacaala oo xubnihiisa u dhowro cibaadadu waxaa waajiba inaynu siino shuruudaheeda oo ugu muhiimsan in laba shardiyo asaasi oo mar walba maqashaan oo ah in ilaahay loo gooni yeelo alikhlaas shayga loo yaqaano oo la yidhaha ilaahay xaqa adigaa leh cid kale kula wadaajin mayno mucaad binu jabal rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu la hadlayay wuxuu dhaha tadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah mucaadow ma taqaanaa xaqu ilaahay dadka ku leeyay iyo ka iyagu ilaahay ku leeyihiin waa inay ilaahay keligii caabudaan oona cid la wadaajinin ilaahay subxaana wa tacaala markaa daacadnimo waa inay jirto ikhlaasku cidaad isbaqashiinaysa iyo cidaad istusaysa iyo waxaad iska gurda raacinaysa iyo maya ilaahay baa ku eegaya isaga uunbaad ula jeedaa inaad ku raali geliso oo addoonnimada aad xaqiijiso waa waxyaabaha ikhlaaska waxa meesha ka saara munaafiqnimada oo munaafiqu ikhlaas ma leh shardiga labaad ee cibaadadu leedahay waxa weeye mutaabacada nebi baa ilaahay noo soo diray sala allahu calayhi wasalam khaatamu lambiyaai walmursaliin isagaa la yidhi diinta ka qaata uu idin maqashiinayo muuqaalkana isaga kaga dayda markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam muxuu sameeyey un baynu leenahay cibaado sidaa daraaddeed baana cibaadadu aqbalin kordhin iyo iska wanaajisasho iyo cid kaloo lagu daydo toona rasuulkunbaa lagaga dayanaya waxaasaa ila wanaagsan ma odhan karaysa cibaadadu waxay leedahay ahmiyad iyo waxyaabo aynu ugu dadaalayno oo aynu ka dheefayno oo aynu ka macaashayno innaga danu ah inoo ah ilaahay subxaana wa tacaala waxba uma tarayno dadkao dhami hadday wada gaaloobaan waxba ilaahay ma yeelaan hadday nebi maxamed oo midhan la wada mid nebiga la wada mid noqdaanna waxba uma kordhiso cibaadadooda liannahu istagnaa waa kaaftoomay rabbi subxaana wa tacaala asmaadiisa waxaa ka mid ah alghaniy waxaa ka mid ah ashamad isaga uunbaa kaaftoon isagun baana loo baahan yahay faa'iidooyinka cibaadadu leedahay waxaa ka mid a wahiya algaaya dee waaba arrintii laynoo abuurayba markuu ilaahay ifkan ina keenay wuxuu ina amruu inaga doonaya inaynu cibaadaysano wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun cibaadadu waa sabiilu lxuriyati min albaatil markaad ilaahay caabudayso
waxaad noqonaysaa qof xora oo madax bannaan oo aan cid kale addoon u ahayn waxa dhab ah haddaad diidday inaad ilaahay addoon u noqoto cid kaloo makhluuqa baad addoon u noqonaysa ama jin baad addoon u noqonaysaa ama waxaad u noqonaysaa gaal ama insi ama mid madaxa ama naftaadaabaad addoon u noqonaysa nafta laftigeedaa la caabudaayo dadka qaarkood markay rabitaankeeda oo dhan raacaan iyo waxay doonaysa iyo shahawaadka iyadaa qafaalatay addoon u yihi cibaadadu waxa uu qofkii ka faa'iidaya waxa weeye inuu xor u noqdo oo adiga iyo ilaahay aan la idiin dhexaynin oo aada u madax bannaan tahay xaqaaga iyo xidhiidhka alleh ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun ilaa man ittabacaka min alghaawiin addoommaha aniga ee caabudaya buu ilaahay yidhi ibliis markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi iyaga awood kuma lihid aada ku saamayn karto anaa kaa ilaaliyey markaa ibliis baad ka xoroobaysa halkaad isaga addoon uga noqon lahay cibaadadu ahmiyadday leedaha waxaa ka mida nasriga iyo tamkiinta inuu ilaahay guulina siiyo guushaana aynu xaslanno oo aynu ku horumarno cibaadada lagu helaa aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatow zakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahaw cani lmunkar walilaahi caaqibatu lumuur waxalla waxaasoo khayra iyo cibaadada iyo guushaas waxaa lagu helayaa cibaadada iyo nasriga addoonku markuu ilaahay si dhaba u caabudo waxa uu noqdaa addoon dhabahoo ilaahay u tiirsan oo uu sharfay alleh fabashir cibaad aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah nebi maxamedow waxaad u bushaaraysaa buu ilahay yidhi addoommahayga addoommo mu odhan laakiin addoommahayga buu waxaa la yidhaha waa sharaf bay u tahay mar hadduu ilahay yidhi waa addoommahayga tashriif baa la yidhaha kol haddee waxyigii intay dhegaysteen wanaaggiisii iyo macaankiisii raaceen ay ku dhaqmeen cibaadadu waxyaabahaynu ka macaashayno waxaa ka mida jannaynu ku helaynaa oo ilaahay nagu siinayaa subxaanahu wa tacaala dukhuulu ljanna ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nusula dadka iimaankii iyo cibaadadii isku daray cibaadadii qalbiga iyo tii muuqatayba isku daray jannadaa firdows baan ku abaalmarinaya ula diyaarhay buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala markaa jannada waxyaabaha lagu helo ee sababta u ah ayay ka mid tahay cibaadada aynu u taaganna aynu la imanayno addoonkuna maalintuu nasanayo ee diihaalkii iyo duruuftii adduunyada uu ka nasanayo waa maalintuu janno gala inta kale warwar kama dhammaanayo cibaadada waxyaabaha aynu ka faa'iidayno waxaa ka mid a innahaa ghidaau ruux ruuxdan inagu jirta raashinkeeda weeye cunada cabidda dawada hurdadu intaasoo dhami halka ay raashinka ugu jiraan cibaadada ruuxda halkaa ugu jirta marka sida waxyaabaha tabarta aynu jidhkeennu u intifaacsanayo cibaadadiina ruuxdeenna ku nool iyo quluubteenna waa ghidaau ruux cibaadadu faa'iidooyinka inoo leedaha waxaa ka mid a waa ibtilaaun yuhadibu linsaan ilaahay wuu inagu imtixaanaya haddana qofkii waa lagu hagaajinaya waa lagu hufayaayo dunuubtii baa laga dhaafaya imtixaanna waa lagu marinayaa adigana waa lagugu safaynaya imtixaanka cibaadadu waa xaqii ilaahay cid waliba xaq bay leedahay saa horeba aynu usoo sheegnay waa xaqii ilaahay intaasoo arrimood mar hadday yaalaan oo aynu ka faa'iidayno cibaadadu waa waxa keliya aynu u taagannahay ee aynu uga faa'iidaysanayno waxyaabaha kale aynu haysanoo dhan cibaadadu raad bay leedahay aynu ku eegayno inay cibaado wanaagsan tahay raadkeedaas waxaa ka mid a inay foolxumada kuu diido siduu ilaahayba markuu salaada ka warramayay subxaanahu wa tacaala wuxu uhi ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu dadka waxay u diidaa dembiga iyo foolxumada soomkaa la mida sadaqadaa la mida cilmigaa la mida qur-aankaa la mida cibaado waliba marka aad si dhaba lagaaga aqbalo wixii xun buu qofku ka dhiidhiyaya oo uu ka damqanaya oo uu ka diiqadoonaya laakiin qofka cibaadaysanaya qofka kale isku mid maaha calaamadaa salaadu ay leedahay cibaadooyinka oo kale cibaadooyinka kale oo dhan way leeyihin soonkiina ilaahay waxa uu leeyahay lacallakum tattaquun aayadda soonka gebagabadeeda soonkaa laydinku waajibiye faa'iidadiisu waa inaad taqwo iyo alla kacabsi ku heshaan wakadalika azakaa sakadii faa'iiday u leedahay iyaduna iyo raad iyo isbeddel qofka bixinaya iyo qofka qaadanaya labadaba qofka bixinaya ilaahay wuxuu kaga nadiifinayaa min ashuxi waalfaqr faqriga ilaahay wuu kaga nadiifinaya oo uu kaga reebaya dhiishii faqriguu tuuraya hadduu faradkii gutay sidoo kale
waxa la yidhaahdo shaxiixnimada oo bakhaylnimo aada u adaga taana ilaahay wuu kaga daweynaya qofkii qaadanayeyna wuxuu ilaahay kaga daweynayaa min alxasadi waalghil xasadka uu walaalkii xaasidi lahaa iyo naxliga u qaadi lahaa oo wuxuu leeyahay dee kol hadduu maalkiisii wax kaa siiya dee uba ducee maxaad u xaasidi maxaad u habaari u ducee buu leeyahy idan markaa waa raadkii sadaqada ay ku lahayd fi laakhidi walmucti kii qaadanaya iyo kii bixinaya labadaba wakadalika alxaju madrasa xajkii waa dugsi la gelayo tababar la soo qaadanayo ayaamaha ilaahay uu dembigii horena kaga nadiifinaya dadka halkaa istaagay ilaahay daraaddiisu taagay waxa dambena ay kaga gaashaamanayaan alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj cudurradaas oo dhan buu xajku ka daweynayaa wakhtiga lala imanayo wakadalika alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkar cibaadooyinka waxaa ka mid ah inuu taaganay wanaagoo la isfaro iyo xumaantoo la isu diido oo qofku markuu qof wanaagsan noqdo wuxuu isu diyaarinayaa dadkana inuu wanaajiyo taana waxaynu kaga badbaadaynaa halaagga iyo fasaadka intay dadku xumaadaan in halaag ku dhaco taasay kaga badbaadayaan reer banu israa'iil markay ilaahay uu isbeddelka ku sameeyo xayawaanka ogeysiiye uu halaagay canaanbu ayuu dusha uga tuuro waxau uhi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaar can qowlihim alithma wa aklihim alsuxt labiisa maa kaanuu yasnacuun talow maxay culimadii iyo kuwii cibaadaysanayay iyaga ka mid ahaa ugu diidi waayeen hadalka dembigaa iyo xaaraanta la cunayo talow maxay u kala aamuseen waxay sameeyeen baa xumaaday buu ilahay labada qolaba cibaadada walaalayaal waxyaabaha burinayaynu ka daynaynaa oo uu ka mid yahay koow xaaraanta cunideeda shayga la yidhaahdo xaaraanta oo la cunaa waxa weeye qofka cibaadadiisa ay duulimaad ku tahay waayo waxaad leedahay waanaan cibaadaysanayaa ilaahay xaaraanta kuu diidayna waad ku gacan saydhaysa kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa ilaahay wuxuu leeyahay cunno wanaagsan baan idinku ogahay iyo camal wanaagsan cunadii wanaagsanayd baa la horraysiiyey camalkii wanaagsanaana wuu daba yaallaa cunadii wanaagsanaan weydee camalku ma wanaagsanaanaya cunadan waxaa looga jeedaa isticmaalka qofku hadduu doonayu cuninba oo dhar ha ka dhigto oo daara ha ka dhistee xaaraanta waxaa la yidhaahdo cibaadaday waxyeelaynaysa waxa cibaadada waxyeelaynaya qayb xaaraanta ka mid oo balwadda ah shayga kol haddii sharciga ay ku suganto inuu xaaraan yahay ama karaahiye yahay inaad isticmaashaa cibaadadaada waxyeello u geysanaysa ama burinaysa cibaadada waxyaabaha dhaawacayaynu ka ilaalinayno waxaa ka mid a bidcada oo bidcadu waa in cibaadada lagu soo daro wax aanu nebigu jidaynin calayhi salaatu wasalaam oo la isleeyahay ilaahay ugu dhowaada man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa rad rasuulkeennu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam qofka camal sameeya aan diinteennan ku jiro waa lagu celinayaa sidaa daraaddeed ha odhanin wuu iska wanaagsan yihi ha odhanin dadkuba way sameeyaan waanu arki jirnay waxaad soo dhan intoo soo dhaafto maa qaala allahu wamaa qaala arasuul alqur'aanu walxadiidu waxayna farayaan ayaynu raacaynaa cibaadada waxyaabahaynu ka ilaalinayna afraada khatarta ku haya waxaa ka mid a jahliga waxaa jahliga la yidhaha inaad iska cibaadaysato oo cibaado walba aada wadda un way wanaagsantahay laakiin inaad cilmiba u raadin weydo arrin aada u khatar badan weeye maadaama cilmiga agtaada lagu hayo ood culimadii heli karayso haddii aad jaahil ka noqoto cibaadadii ay kaa burto lagu cudurdaari maayo aakhiro adduunyadan lagu cudurdaaray rasuul allahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nin baa ku ag tukaday salaadii buu xumeeyey nebigu uu yeedho wuxuu uhi salli fa innaka lam tusalli 3 jeer buu ku celiyey tuka maa tukanine markii labaad uu soo tukaday haddana tuka maa tukanine markii saddexaad tuka maa tukanine marka salaadihiisii hore o dhami may ansixin liannahu kaana yatruku ruknan min arkaani asalaa aطumaaniina tiirarkii salaada mid ka mid ka tegay ah xasiloonida arkaanta in lagu xasilo si degan oo kala habaysan qofkii u tukado taasuu ka tegayo salaadiisu salaad degdeg uu ku badan yahay baa marka nin dhan oo tukado asxaabiyo nabi maxamed masaajidkiisii fadliga badnaa ku tukaday buu nabigu may ka ansixin as waxay tilmaamaysaa qofkii xaaladda inaan jahliga loogu cudur daaraynin waxa la yidhaha waa caalim bilcilmi wa caalim bilquwa dadku waxay u qaybsan yihiin qof cilmiga yaqaana iyo qof ise oo caalim la yidhaha iyo caalim labaad oo ah qofkii baran karayay isna yuctabar annahu caalim ayaa lagula xisaabtamaya arrimaha afarta waa 4 arrimood oo khatar badan oo cibaadadeenna duulimaad ku ah
وإن اسكو براروجينينو إلا ويدارتو oo xalkooda uu qofku helo aad ugu baraarugsanaado marka cibaadadii inta aynu isla helno waxaynu rajaynaynaa inaynu noqono inama yataqabbalu Allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa dadka taqwada leh ee ka cabsanaya rabbi subhanahu wa ta'ala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم